khilaafka nukliyeerka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha waxa ay ka cadhaysiisay in ka badan 3 milyan oo ciidanka Shiinaha taas oo ay ugu wacan tahay xiisadda jasiiradda Taiwan iyo arrimo badan oo jahwareer ah oo ka dhashay xiisadda juqraafiyeed ee labada wadan marka loo fiiriyo damaca ay ka leeyihiin jasiiraddan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ballanqaadkiisii ahaa inuu difaaci doono Taiwan haddii ay dhacdo weerar uga yimaada Shiinaha ayaa ka dhigan mid ay adag tahay inay dhacdo balse la filan karo xilli kasta maadaama aysan horey u jirin dagaal toos ah oo dhex maray mid ka mid ah quwadaha nukliyeerka haysta marka laga reebo xilligii Mareykanka uu hubka nukliyeerka u adeegsaday Japan oo laga joogo in ka badan 80 sano. Sawirka guud ee gulufka colaadeed oo dhex mara labadan quwadood ee nukliyeerka haysta waxaa la oran karaa waa dagaal dhanka warbaahinta ah maadaama ay jireen baa la yiri dagaalo hore u dhaxeeyay Mareykanka iyo Midowgii Soviyeeti. Markii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa dad badan oo Mareykan ah ayaa rumaysnaa in xiisadda gantaalaha ee Cuba ay iyana dhammaatay taasoo ay daliil u ahayd markii albaabada la isugu dhuftay taliska cirka ee Soviyeetka ee istiraatiijiga ahaa sanadkii 1992. hubka nukliyeerka ahi muddo ayuu soo jiray isaga oo maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanayay balse xiisadiisa ayaa hoos u dhacday kadib markii istiraatiijiyadda taliska hawada ee ah xuduudda ka hortagta nukliyeerka uu Mareykanku hoggaanka u qabtay. tan iyo markaasna cabsidii laga qabay nukliyeerka hoos ayay u dhacday iyadoo Mareykanku uu diiradda saaray colaadihii uu ka abuuray bariga dhexe ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah. hase ahaatee soo bixidii cudud kale oo nukliyeer ah taasoo adduunka muddo dheer safka hore kaga jirtay duulaankii uu Ruushku ku qaaday Ukraine ayaa u muuqday inay albaabka u furayso rajada laga qabo in khilaaf uu kala dhex qarxo Mareykanka kaasoo taageerayay Ukraine aaminsanaana madaxbannaanida Taiwan halka Shiinuhu uu arko jasiiraddan inay iyaga hoos timaado waana colaad la filan karo xilli kasta inay dhacdo. Mareykanka iyo Shiinuhu waa dalalka koowaad iyo labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka labaduba waa quwado nukliyeer ah oo aan la dhayalsan karin haddii ay dhacdo khilaaf toos ah oo u dhexeeya iyaga isla markiiba waxa uu khilaafkoodu isu rogi karaa mid nukliyeer la isku adeegsado. su'aalo badan oo maskaxda ka guuxaya ayaa jira marka laga hadlayo muranka Mareykanka iyo Shiinaha ee la xiriira jasiiradda Taiwan kuwaas oo qaar ka mid ah haddii uu bilaamo la filayo inuu wajiyo kala yeesho maadaama ay dowladda Mareykanku ka go'an tahay inay Taiwan ka difaacdo weerar kasta oo dhanka Shiinaha ka yimaada halka qaar kalena waxa dhacaya ay ka aaminsan yihiin oo kaliya mid ku kooban warbaahinta lana mid ah dagaalkii qabooba oo kale. inkastoo dhammaan su'aalahani ay isweydiintoodu imaanayso xaaladda hadda jirta awgeed waxaa jira oo iyana aan la hilmaami karin oo ay u baahan tahay in si dhab ah loo fiiriyo oo ah haddii hal gantaal oo Mareykanka ah uu ku soo dhaco dhulka Shiinaha jawaabta Shiinaha waxay noqon doontaa mid la mid ah waxayna gantaaladiisu ay gaari doonaan gudaha Mareykanka waxaana la oran karaa waa iska horimaadkii ugu horeeyay ee gantaalada bilistiga ah ee dhex mara quwadaha waaweyn ee caalamka iyadoo shucuubta dalkaasina aanay diyaar u ahayn inay la kulanto xaaladahaas adag. maxaa yeelay baa la yiri cawaaqib xumada ka dhalan karta iska horimaadka militari ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha wuxuu noqon doonaa mid halis ah sida awgeed ma jirto sarkaal ka tirsan Mareykanka inuu tallaabadaasi qaado si uu Taiwan uga difaaco weerar kasta oo ka yimaada Shiinaha maadaama uu ka warqabo in khilaafka Shiinuhu noqon karo mid aanu Mareykanku taariikhdiisa ka soo kabsan karin. dhanka kalena waxaa la filayaa inay aad u adag tahay in la xakameeyo iska horimaadka Ukraine iyo saamaynta ballaadhan ee caalamka sababtoo ah dagaalkan wuxuu u muuqdaa mid u wareegay goobo hor leh iyada oo dhowaan qarax lala beegsaday baabuur bam lagu soo xidhay oo marayay magaalada Moscow taasoo horseeday dhimashada gabadh wariye ah oo lagu magacaabo Daria Dugin oo uu dhalay filosoofka loogu yeero maskaxda Putin ka dambaysa ee lagu magacaabo Alexander Dugin oo ay isku dhow yihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. dhacdadani waxay dhalisay su'aal muhiim ah oo wargeyska The Times ee ka soo baxay Ingiriiska ku soo qaatay tafatirkiisa ma la filan karaa in Putin dhacdadaas kaga jawaabo duqeyn cusub oo lagu bartilmaameedsanayo Ukraine xilli ay dhacdadani ku soo aaday dabaaldegga maalinta madaxbannaanida mise waxa uu qaraxyadan u adeegsan doonaa ujeedooyin kale iyo sidii uu nadiifin lahaa laamaha ammaanka ee sirdoonka Ruushka. wargeysku wuxuu soo jeediyay in Putin la filayo inuu qaado wadada labaad maadaama Joseph Stalin uu horey u isticmaalay hababkan oo kale maadaama uu Sergei Kirov sanadii 1934 uu ku khaarajiyay qarax loogu xidhay gaarigiisa wuxuuna xilligaasi Joseph Stalin uu bilaabay marxalad cusub oo dilal iyo maxkamadayn qarsoodi ah oo lagu fulinayo dadweynaha iyo ciidamada sirdoonka oo hore si dib u habayn ah
oo dhammaystiran uu ugu sameeyo qaab dhismeedkii midowgii Sofiyeeti. Dhinaca Putin waxaa la filayaa inaanu diyaar u ahayn inuu bilaabo oo la ballaaran oo noocaas oo kale ah, balse waxa uu muuqdaa inuu sii xoojinayo mowqifkiisa dagaalka uu hogaaminayo ee ka socda Ukraine. colaadanna waxay dhalinaysaa su'aalo la xiriira in doorka hogaamineed ee madaxweynaha Ruushka ee Putin ay weli caalamka ka sii jirto. wargeyska The Times ayaa tilmaamay in weerarkan duqeynta ah uu ka durugsan yahay dagaalada ka dhacaya dalka Ukraine, kaasoo ay ka dhacayeen duqeymo ba'an oo lagu hagayo shacabka reer Ukraine. waxaa jira warar tilmaamaya in weerarka la doonayay in lala beegsado Alexander Dugin oo ah falanqeeyo siyaasadeed kaasoo ay aad isugu dhow yihiin madaxweynaha Ruushka. beegsiga gabadha uu dhalay Dugin waxay ku timid si qalad ah, isagaana lala damacsanaa maadaama uu aaminsanaa inuu ahaa qofka loogu argudayay aragtidiisa uu sida weyn u taageersanaa in gobolka Crimea lagu daro 2014 Ruushka. waxaanu sidoo kale qoray dhowaan maqaal uu ku yidhi waxaa la gaaray marxaladii uu midkeen dagaalka ku guulaysan lahaa, waa inaan ku dhimanaa ama aan wada laynaa reer Ukraine. ma jirto waddo kale oo furan ama wada hadal dheeraad ah, halka dowladda Ruushkuna ay ku eedaysay Ukraine inay soo abaabushay weerarkaasi. Ukraine waxa ay dafirtay inay wax xiriir ku leedahay qaraxaasi. warar hoose ayaa sheegay inuu jiro isku dhac u dhaxeeya laamaha ammaanka ee sirdoonka Ruushka, waxaana la filayaa in mid ka mid ah ay damceen inay dilaan Dugin iyo gabadhiisa si loo sii horiyo dagaalka. dhinaca kalena loolanka u dhaxeeya quwadahan ku hirdamaya awoodda caalamka waxaa kale oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dunida, waxaana dhowaan Jerome Powell madasha caalamiga ah uu ku xaqiijiyay sanadkii hore in sababaha ka dambeeya kor u kaca heerka sicir bararka ay yihiin arrimo salka ku haya dhinacyadan, isaga oo hadalkan jeediyey markii heerka sicir bararka Mareykanku uu ahaa 5.00%. waxaase muuqata in sicir bararku uu kor u kacay 8.5% dhinaca Mareykanka, halka 8.9% uu ka gaaray midowga Yurub. heerka dulsaarka ayaa isaguna kor u sii kacaya marka loo eego wadamada dhaqaalaha leh. siyaasad-dejiyaasha duniduna waxay sheegeen in loo baahan yahay in waqti dheer ay qaadan karto dadaalka loogu jiro xal u helista sicir bararka soo noqnoqonaya. inta badanna siyaasiyiinta ayaa hadda dhaleecaynaya bangiyada dhexe iyo tallaabooyinka ay wax kaga qabanayaan sicir bararka, iyagoo dhowr jeer dhaleecayn u jeediyeyna bangiyada Ingiriiska iyo Australia oo dulba bilaabay dib u eegis inay ku sameeyaan bangiyadooda dhexe. wargeyska Financial Times ayaa dhankiisa soo jeediyey in eedaas kaliya ay iska lahayn bangiyada dhexe, maxaa yeelay inta badan arrimahan ka qayb qaatay kor u kaca qiimaha sicirka badeecadaha adduunka waxay salka ku hayaan kuwo ka baxsan maamulka lacagta. hirdanka u dhaxeeya madaxda adduunka haddii ay noqon lahayd Shiinaha iyo Mareykanka ee isku haya jasiiradda Taiwan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee dhinaca Ukraine ayaa ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee sii wada in kor uu kaco qiimaha maciishada ee adduunka oo dhan. barnaamijkeeni xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi TV.